وعلى wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa ay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqa raadis barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa oo aynu focuska ku saari doonaa arrin haatan hadalhayn badan dhalisay ciidamadii federaalka Itoobiya oo shaxdii ka soo xaday dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida baa la yidhi iyo askartii ciidanka federaalka Itoobiya oo board ku galgashay oo markaa haatan iyaguna inay gabdho ku raadinayaan bilaash ku doonta iyo in moogtahay waxay ka tahayba taasi oo haatan qosol badan gelisay deegaanka Soomaalida oo markaasi ay leeyihiin shaxda anaga ayay ka xadeen ciidankayaga iyo waxa sidoo kale aan ku eegaynaa wiil yar oo u dhashay deegaanka Kombolcha oo sameeyay diyaaradaha droniska taasi oo haatan yaab gelisay dhalinyaro badan xagga dowlad deegaanka Soomaalida dhalinyartooda haddaba maxaa iyagana la gudboon ma inay TikTok iyo Facebook ka sheekeeyaan mise inay dadaal sameeyaan oo halka ay qeyrkood marayaan ay maraan oo ay technology-ga ka qayb qaataan si aan hadhow toole diyaaradda wiilka yar ee haatan sameeyay daroonka ayaa laga yaabaa bari toole in dowlad deegaanka Soomaalidu xukuumadda dhamay ay malaayiin bir soo siisato oo ay ka iibsato xagga dhalinyarta Soomaaliduna TikTok iyo Facebook ka sheekeynayaan haddaba maxay noo yaala fadhiga in laga kaco weeye qodobo kale ayaynu focus ka saari doonaa ku soo dhawaada barnaamijka xaqiiqa raadis وهاك برنامج كان عنكم بلونا برنامج حق غراديس ومن رونتا كهلا أو مركا رونتا لسكوش يجي دولة ديجان سومالات يحق عالم كلا مرة يموتوا ميد بور كلا سكتشوف يو مركا حقيقيين كتير عنكم تابعنا إنه أرتب الأريق صلى عنكم يروح الرئين دين عيدا كفدرال كيتوبيا أيها توحل شيئين أي بلعبان سيدي عيدا كدولة ديجان كسوماليدا إن أي اسمريان بورد بدن أو مركا سي وجدت هذا يجمع حكتها runtii horta markii ay dowlad deegaanka Soomaalidu la dagaalamayeen ciidamadii al-shabaab ayaa moogtay waqtiga board badan iyo abaar baa jirtay dee dhalinyartaasi moogtay la dagaalameysay al-shabaab iyo moogtay ciidamada deegaanka Soomaalidu boardka isma marin dhulka board lahaa oo moogtay marka ay dhulka fariistaan ay dagaalamaysan habaaska iyo boardka ku dhacay sadarteed markii sawiraantii laga soo qaaday ayaa gabdhihii Soomaalidu waa ku yiraahdeen de meherkii bilaash baan ka dhignay xitaa waa kida dowlad deegaanka Soomaalida shacabka iyo hanti badan iyo wax walba loo horay geesiyaal loo aqoonsaday haddaba dhinacii federaalka ayaa la sheegay haatan shaxdii oo kale in ay bilaabeen sida muuqaalada ka muuqata ciidamadii federaalka Itoobiya ayaa haatan iyaguna board isu soo wada marmariyay marka ma gabdho jaban bay doonayaan ma in taageero kale doonayaan yacni ma aqoonsi u baahan yihiin haatan aad baa la isla dhex maraya moogtahay waa arrinta qosolka leh ee haatan xogaha la isla dhex maraya baraha bulshada waxaana dadka qaar sheegayaan oo ay ku tilmaameen arrinkaas inuu yahay igu sawirtii oo gashay xagga boardka in la galgasho moogtay bay yiraahdeen oo markaa ay dadkii ciidankii ay haatan boardkii isku soo intay galgasheen isku soo sawirayaan si lagu aqoonsado geesiyaal bay yiraahdeen laakiin uu si kastaba ha ahaatee shaxdaasi waa mid dowlad deegaanka Soomaalidu ay ku soo horeysay dhinaca kale wiil yar oo Kombolcha u dhashay waa deegaanka moogtay qoomiyadda Axmaarada ee magaalada Desi ka soo sokaysa Kombolcha istaraatiijiga oo jaamacad halka kaga jiray ayaa haatan yaab geliyay waxaanu sameeyay diyaarad drone ah oo uu kiciyay diyaaradda drone-ka wiilka yar uu sameeyay ayaa haatan la tijaabiyay waana guuleysatay baa la yiri waxaana haatan laga yaabay moogtay shaxda uu ku dajiyay wiilkaas yari wax weyn ma runtii waxa yar haatan isku keenay moogtay wada technology caalamku la talaabsanaya hadhow tala dawladdu markay wax laga yaabaa inay maal geliso oo markaasi ay diyaaradahan drone-iska malaayiinka dollar ay soo siisanayso xukuumadda Itoobiya ayaa laga maarmi karaa baa la yiri haatan marka xukuumadda aad bay u dhiirigelisay dhinaca kale haddaba waxa kale oo jirtay gantaal wiil yar oo kale uu sameeyay moogtay 2 bilood ka hor oo isna moogtay deegaanada kale Itoobiya u dhashay oo gantaal ilaa iyo gaaraya moogtay 500 oo mitir bay hadban maalin ay gaarayay marka waxa isku dayaysaa xukuumadda Itoobiya had iyo jeer in technology kala qayb qaataan caalamka deegaankii Soomaalida maxaa hadaba la gudboon dhalinyartii jaamacadaha dhiganaysay qaarkood business bay barteen baa yiri business horta runta hadii sheegay faa'iido ma leh waxa business ka leeyahay waa aba ganacsiga wad maamulan kartaa wax macnaa weyn kuma fadhiyo technology-ga in la barto ama caafimaadka la barto war ama moogtahay wixii engineering la barto weeye maaha qaarkood business bay barteen qaarna Facebook iyo TikTok bay ka sheekeynayaan caalamkii waa layna dhaafay runta isku sheegnaa inaan ka yaray imka Kombolcha jooga ee sameeyay diyaaradda drone-ta baritoole ka maalin wax laga yaabaa dowlad deegaanka Soomaalidu intay cararaan inay soo iibsadaan diyaaradda uu sameeyay
oo la yidhaahdo beeraha lagu survey garaynaya ama moogtahay dee maalgelin lagu sameeyo oo moogtahay dee soo laga soo iibsado inaan kaa yar fikir ku keenay xagga wiilkii Soomaaliga ahaana midna oo moogtahay TikTok iyo Facebook ka sheekeynayo midna business yar iyo bilaa macno bartay mid kalena meelaha moogtahay dee iska joogo يعني waxa muhiim ah hadii technology-ga in lagu barto oo muhiimada la saaro aduu si kasta ha ahaatee waxa tan jirta wiilkaasi drone taa u sameeyay inay noqotay markaa mid yaab gelisay oo tan baraha bulshada ee Ethiopia la isla dhaxmarayo wiilkii yaraa bayraktar TB2 hindisayba halkaas uu ka keenay fikirka marka waxa weeyaan wixii technology-ga in laga qayb qaato ayaa muhiim ah barnaamijkan intaas ku dhayeetay kula teelada nabadgelyo